iyo bogaadin u soo jeedinaynaa iyo soo dhaweyn waalidiinta sharafta leh ee na soo ajiibay wicitaankeenii soo ajiibay waqtigooda qaaliga noo soo huray ayagana waan ammaanaynaa waan u mahad celinaynaa xafladda way noo furan tahay maadaama ay hadli doonaan xubno muhim noo ah waalidiin iyo maamul ma rabo inaan ku sii dheeraado midowga iyo mudnaantiisa waa laga hadli doonaa macrifa iyo magacaas mudnaanta loogu midoobay waa laga hadli doonaa waxaan ku soo gaabin lahaa kelimadeyda in ay tahay guul u soo hoyotay ubadka hadda wax baranaya gaar ahaan deegaanka ay ku yaallo iskuulkan guul u soo hoyotay maxaa yeelay maskaxda markii la mideeyo miraheeda dhaqso baa la arkayaa baynamaa marka ay kala dhantaalan tahay miraheeda laga yaabo in ay soo daahdo anigu waxaan ka mid ahay dadka waalidiinta u dhigato iskuulka almacrifa haddana u tadawuray iskuullada midoobay oo aan ilaahay ka rajaynayno siday ahaadeen iyo si kasii qurux badanba inay noqdaan maadaama magacyaalkooda aan ka dareemayno magacyaal xigmad ku fadhiya inay yihiin saddexdooda naloo sheegaba marka shayga markii lala baxo waxaa shardiya inuu ku fadhiyo macne shay haddii lala baxo oo jaamid uu yahay waxba ishtiqaaq ma leh shaygaan inuu mushtaq yahay macne laga soo qaatayna uu leeyahay muhiim waay dadka ahlulcilmiga way fahmayaan arrintaas iskuullada saddexdana lakaga dhawaajiyey haddana ku midoobay hal magac anigoo ku hadlaya magaca hooyooyinka waxaan maanta wax u sheegayaa hooyooyinkan wax u sheegayaa waxaan leeyahay hooyo macalinka iyo ardayga lafdhabartii u dhaxaysa noqo haddaadan noqonin wiilkaaga ama gabadhaada maxsuul fiican ma keenayo sababtoo ah waxaan mararka qaarkood aan arkay oo nadartu aan dhahay arday la soo buriyey ee macalinka oday ama hooyo jidka maraysa dhahayo hooyaday macalinka yaqaana aabbahay ma yaqaanee kaala iskuulka igey aabba ii noqo ama aabbahay macalinka yaqaana hooyaday ma yaqaanee eedo kaala hooyo ii noqo meeshaas waxaa ka imaanayso dhibaato weyn marka hooyooyinka waxaan leeyahay hooyo dadaalkaaga 2 laab 3 laab dhaxda guntiga marada ku xiro wixii aad soo saaratana marka ugu horeyso waxa iska leh oo miraheeda guranayo waa hooyo marka hooyooyinka aan dadaalno 100% aan dadaalno dadaal aan muujino macallimiinta aan la xiriirno si wax soo saarkeena faa'iido fiican oo qurux badan oo noo sameeyo waana muhiim macallin 2 daqiiqo macallin haye gabadhaydii wiilkayga fasalka ma soo galeen haa xaaladda ka waran xaguu maraa imtixaankii bilaadkaa la galay macallin muxuu keenay wiilkaaga ama gabadhaada wuxuu soo qoran karaa maado arday kale wuxuu ku baas soo qoran karaa macallinka markaad xiriir la leedahay ma soo qoran karo waxaan ka mid ahay bahda almacrifa waxaan ka mid ahay ubaxyadii ay soo saartay misana ay soo barbaarisay almacrifa waxaan aad ugu faaxsanahay inaan ka mid ahaado almacrifa waxaan dhigtaa mid ka mid ah jaamacadaadka ugu facawan ee ugu tayada aqoonta sareeya dalkeena jaamacadda muqdisho waxaan sanadka 3aad ka ahay kuliyadda waxbarashada taqasuska biology chemistry arday ka baxay iskuul yani oo adag maahane jaamacadaas uusan ku dhiiri kelin qof kale waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka mid ahaado bahda yani almacrifa waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo madashan quruxda badan ee xafladan qiimaha ay qaayaha leh ee midowga saddexdan iskuul waxaan leeyahay horumarkan iyo horumar ka balaaran buu u rajeynayaa iskuulkayga
magacan almacrifa waxaa ku midowday miftaax oo aniga maamul aan ka ahaa oo masjidka xagga uga yaalla macruuf uu nagala joogo sheekh cabdiraxmaan macallin cusmaan maxamed iyo almacrifa oo ah magaca aan ku midownaba saddexdaas iskool ayaa midowday midow ka bacdi ayaa waxaa dhashay su'aalo tiro badan oo waalidiinta qayb ka mid ay ila wadaageen aniga su'aalahaas waxaa ka mid ahaa war ma wasaaradda in ku qasabtay in la midoobo wasaaradda miyaa in ku riixdo oo qasab tiri iskoolada xoogaa 5 sano ama 10 sano jira waa la baabi'inaaha midooba waxaa ka mid ahaa su'aalihii haddaan wax yar sheego dad badanoo fadhiyana way ka guuxee iskuul saddexda iskuul ma waxaa jira iskuul burburi rabay oo la soo kabay su'aalahay ka mid ahayd intaba aniga ka jawaabaya oo magaca maamulka iskuulka ku hadlaaya ma jiro iskuul burburi rabay oo la kabi rabay waxa ay wasaaraddu nagu qasabtana ma jiro saddexda iskuul kasta waxaan marqaati ka ahay imtixaanka 8aadka ah ayagoo ay dhiyadooda watay nin walba gaar u galay imtixaanka wasaaraddu ay qaatay oo gobolku uu mas'uul ka ahaa saas si lamida form 4ka nin walba gaar ayuu u galaa asagoo meeshiisa jooga idan halkaas waxaa ka caddaatay ma jiro iskool aan aqoonsi lahayn oo burburi rabo baabi'i rabo la soo kabaayay mu'asasaadka saddexda iskool oo ku midoobay magaca hadda inii muuqda ee almacrifa nin walba wuxuu go'aan ku gaaray aniga iyo sheekh cabdiraxmaan inuu magaciisii ka soo tago magacaan la qaato ujeedkuna ay tahay in la tacliinta la tayeeyo sida tusaale ahaan hadaayatasan maqlay ustaad warsame waalidiinta wax badan uu sheegay baraarujinna waa dhihi doonaa kelimo baraarujina ardada tacliinta waxaan laga bilaabi doonaa tayeynta ardada in ID la siiyo ID-gaas uu qoorta soo surto hadduu ilaahay yiraahdo muxuu caawinaa ID-gu jib yar uu leeyahay oo bahal yar oo barcode reader la yiraahdo lagu akhriyo waalidku marka qofka smartphone-ka isticmaalaya maamulka inuu waco uma baahan doono tayada uu ku soo kordhin doono iskoolka tacliinta ayay ka mid tahay ID-gu ka qaadaa jibkaas wuxuu ku fiirinaa sabiyaha iskaan uu leeyahay ama bahal barcode reader la yiraahdo cunuga inta subuxu soo daahay intuu maqnaa maado walba inta uu ka buundada inta uu haysto mark sheet-kaas oo waxba soo raadino macallinka soo wicino maamulka soo wicino waxbana aanan dhihin intuu keenaa laga ogaa doonaa ardayda marka ID-gaas la wada sii doonaa tayada uu soo kordhin doono madarasada ama iskuulka almacrifa ayay ka mid tahay waxaa kaloo hadduu ilaahay yiraahdo rajaynaynaa oo aan isu kaashanay in laabab la helo iyo meel ardada waxa ay barteen ay ku baraktikeeyaan waxaan ku hadlayaa afka macallimiinta haddii aan nahay macallimiin waxaan uga baahannahay waalidiinta ayaan rabaa iyo waxyaalaha aan la kulanna annagu maadaama ay noo doorteen ama ay noo dhiibeen ama ay nagu ammaansadeen carruurtooda ama ubadkooda si aan u tarbiyeyno waxaan u baahannahay waalidiinta uga baahannahay la xisaabtanka sida hadda macallinku sheegayay haddii ardaga uusan xisaab kala kulmayn inta u dhaxayda waalidiinta iyo maamulka annagana caqabada naga qabsan kara waalidka waxaan uga baahannahay ardayga xanuunkiisa iyo caafimaadkiisa in mar walba ay nala soo socodsiiyaan maamulka tusaale ahaan haddii annagu aan nahay barayaashii iskuulkan almacrifa waxaan la kulmaynaa haddii xisaab annagu aan la kala kulmayno ama aan maamulka iyo macallimiintu ay xisaabtamayaan ardaygan wixii la gelin lahaa iyo cashirkii loogu talagalan la rabo inuu qaato haddii ardaygu markii xiisadda la galo tusaale ahaan ay macallinka isqabsadaan oo cashirkii iyo daraasadii baxday ay ka wada hadlaan oo ardaygii ay dhacdo inuu wixii laga raba keeni waayo waxaa dhacaysa markaas in macallinkii iyo ardaygii isku dhagaan waalidiinta waxaan rabaa inaan dareensiiyo awoodda ay leeyihiin waxaad mooddaa meesha ay ka joogaan iskuulka iyo waxbarashada iyo awoodda ay leeyihiin inaysan ogayn ratiga waxaa la yidhaahdaa cunug yarihiisa iska wata awoodda ku jirta ratiga iyo cunuga awooddiisa dad isku fiirshana shaqa iskuma lahan ilaah baa noo hibeeyey waalidiinta waxaa la rabaa iskuulka markii la sheego waa system dhisan system kastaana wuxuu leeyahay wuxuu ka kooban yahaa jira iskuulka muxuu ka kooban yahay waalidiin iyo arday wax la barayo iyo maamulkii iyo macallimiintii iyo dhismihii iyo agabkii wax lagu baranayay mid kastaahay waa muhiim
cidda ugu muhiimsan yaa waaya marka waa waalidka ubadka soo diraya waalidkeennii intooda badan waxay noqdeen inay waxbarashadu tahay waxaa la bartahay baro waa caadi cunugu markuu 7 sano gaaro in dugsi quraan la geeyo waxaa kaloo caadiya markuu quraanka kala barsi marayo in bareefad la geeyo waxaa caadiya in haddana macahad la geeyo ka bacdina uu iska qalin jabiyo si caadiya hadhowdina jaamacad loo diro si caadiya hadhowdina markuu dhammeeyo la yidhaahdo war ciddaadu ma taqaano shaqo ku geymaydee kaalay aniga caanaha ila qaadqaad wax kale ma gashide sababtu maxay ahayd wax dhamma awal caadi yahay haddii laakiin aan si aan caadiyin u fakarto oo si aan caadiyin aad ula xisaabtanto ardaygaaga oo si aan caadiyin aad wax u barto waxa soo baxaya arday aan caadi yahayn oo markuu qalin tabi rabo la sii balansado oo la raadiyo ayaa soo baxaya marka waalidiinta waxaan ka rabnaa haddii la yiraahdo inay ogaadaan iskuulka almacrifo cidda uu ka bilowdo kuna dhammaado adinka inaad tihiin